taaka xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalidu waxay u ballansan tahay in jeelka dhexe laga sii daayo maxaabiis kor dhaafaysa 1500 maxaabiistaas inta badan lagu sheegay inay tahay maxaabiis siyaasadeed. warkaasina waa war aad u farx geliyay dhammaan dadka ku nool dowladdeegaanka Soomaalida. waxaan laga yaabaa maanta inuu xabsiga dhexe aad mashquul u noqdo agagaarkiisa oo dhan oo dadkii maxaabiista la sii daynayay iyo dadkii eheladu ahaa ay ku kulmaan halkaas iyo xukuumadduba. xikama dadka siyaasadda u xiran waxaa kamid ah xubno kamid ah ururka ONLF kuwaasi iyagu ma ku jiraan? bushra way ku jiraan. waxaad ogtahay in dhawaan magaalada Nairobi ay dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ay heshiis maaragtay ay ku dhex maray inkastoo heshiiskaas go-aankiisii weli la gaarin oon la saxeexin oo waqti dambe isku laabanayaan dowladda iyo ururkuba. laakiin haddana waxaa jirta in ay maaragtay heshiis si fiican u socda ay jiraan. tanna waxay kamid tahay in la wanaajiyo jawiga siyaasadeed. maxaabiista ONLFtu way ku jiraan, weliba kuwa ugu badan ayaa la rajeynayaa inay kamid noqdaan. kasakow xubnahan u xiran dowladdeegaanka waxaa jira kuwa kale oo iyagu dowladda federaalka Itoobiya u xiran. kuwaasi maxaa uga qorshaysan dowladdeegaanka oo ay ka yeelaysaa? saaq ayay soo jeedisay dowladdeegaanka Soomaalidu oo ay u dirtay dowladda dhexe federaalka waxayna qoraalka ku sheegeen mar haddii la sii daayay ururo argagixiso loo haystay iyagoo u jeeda sida Gumbood Sabaad ururkaas oo baarlamaanka hadda ka hor ansixiyey inay argagixiso yihiin iyo ururka ONAG ayaa haddana waxaa loo sii daayay waa dhaweyd maxaabiis 101 ah. marka qoraal ayay dowladda deegaanka Soomaalidu ku dirtay dowladda federaalka oo ay ku sheegtay mar haddii xubnaha noocaas la sii daayay waxaan ka codsanaynaa maxaabiis ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida ee siyaasadda ugu xidhan xabsiyada federaalka in la sii daayaan codsanaynaa ayay tiri dowladda deegaanka Soomaalidu. bushra waxaad ogtahay baryahan maxaabiis badan la sii daayay oo siyaasadda u xidhan oo dowladda federaalka iyo deegaanaduba inta badan ay sii daayeen. taasina waxay ku timid xisbiga EPRDF markii uu go-aan ku gaadhay in maxaabiista siyaasadda u xidhan gacanta laga sii wadaayo si loo dejiyo wadanka oo isku horrimaadyada qowmiyadaha iyo xaaladda kacsan hadda si wadanka loo dejiyo ayaa maxaabiistaas loo sii wadaynayaa. marka deegaanka Soomaaliduna qaybtii kaga soo heertay ayaa hadda ah. waxaan ogtahay dhowr isbuuc ka hor in la sii daayay 66 macallimiinta quraanka kariimka dhigta. waxaas oo dhan waxay ka dhigan tahay in wadanka xaaladiisa la dejiyo oo dadku isku furmo oo dadka niyadiisa aad loo wanaajiyo si xaaladan ay hore u soo socoto si wanaag ay u soo socoto.